runtii dadka Soomaalida fahamkooda soo kacaya qayb weyn waxa kula saxaafadda muuqaalka Soomaaliya ee dibadda maanta jiraahi waxa uu ku leedahay saxaafaddu qayb weyn ay ku leedahay saxaafaddana Soomaaliya runtii tiir weyn way u tahay dadka Soomaalidana aaday muxuu ahay uga saxaafaddu uguna xiran yihiin ugana shaqeeyaan runtii marka dhalinyaro aad iyo aad ayaan idinku hambaleynayaa duruufo badan ciriiri badan inuu jiro laakiin dawladda federaalka intii horena way ka soo shaqeysay mustaqbalkan waa laga shaqeynayaa in la helo in la adkeeyo yani shuruucda difaacaysa ee saxaafadda ilaan dadkii in la gaarsiiyo fariintii wanaagsaneyd iyo wixii dhib oo jiro inta waa muhiim haddii markaa dadka aan la gaarsiino waa dadkii waa tan dhahnay saxaafaddu waa dhagihii indhihi dadka laga xiray ayay la mid noqonaysaa qof aan dhaga lahayn indhana lahaynna fahamkiisa waa garan kartaan meesha uu gaari karo marka in saxaafadda la caburiyo in maxaan ku irahdaa dhib la gaarsiiyo in maxaan ku irahdaa tahdiid iyo cabsi ay ku noolaato runtii waa dhagaha iyo indhaha iyadoo dadka laga xiray la mid tahay niyad samida iyo wanaagga loo haayo saxaafadda oo dadka Soomaalida u haayaan dawladdu u hayso caalamku u haayo in qof uu uga faa'iideysto in uu macnaha sharciga qof ka sareeyo inuu u ekaado muuqaal saas ay baxdana waa laga fiican yahay ma fiicna waxaan rabaa laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa bahda saxaafadda oo duruufaha adag ee la soo maray ku shaqeeyay ku guuleystay inay ku shaqeeyaan shabaabka Soomaaliin walba dagaal ku hayo dilayo haddana qaarkood ku dhiiraday in ay istaagaan ay dhahaan waa tuuga waxay sheegaan wax kama jiraan waana dambiilayaal waa inay dhahaan yani intaasoo dhan qatartaas waxa loogu bareeray waxay ahayday dadka Soomaalida in maskaxdooda iyo macluumaadkooda ogaalkooda in kor loo qaaday ahayd aad iyo aad ayaan marka u bogaadinayaa uguna hambaliyeynayaa dadaalkaas dheeriga ah iyo maxaan ku irahdaa nafhurnimadaas gabdhaha iyo wiilasha saxaafadda ka shaqeeya ay sameeyeen waxyaabaha aan saxaafadda aan rabno waxay tahay oo nacawada raba inaan xusuusiyo masawirka dhabta ee Soomaaliya ma aha kaliya siyaasadda laakiin waxa malaysaa marka qaarkood inay nagu yar yihiin arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada waxyaabahaas waxa ka jiraay dadka inay og yihiin inay nagu yiriin mesela 3.7 adduunyada oo waliba waqti ciriiri oo dhib badan ku jirta ayaa la dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu kordhay 3.7 ayadoo dalal badan oo waligood dagaal sokeeye ka dhicin burburna aanu ka dhicin korsimada dhaqaaladu intaas uu gaari waayay 2014 sanadkii 2015 hadda la soo saaray inay raadisiin u baahan tahay 4 wax waaye 4.2 4.1 wax waaye asagana korka dhaqaalaha Soomaaliya iyo sidoo kale macaamilka muxuu ganacsiga Soomaaliya adduunyada ila leedahay ma aha waa wax qof uu yiri ma aha waa facts and figures waa nambaro iyo xaqiiqooyin laga hadlayo oo documented ah waay dalkeenu markii inuu socdo oo muxuu ahay tartiib u socdo oo la og yahay adiis macluumaadkaas inay jiraan dadkeenu inuu og yahay marka waxyaabaha dadka in la tusiyo ama loo sheego u baahan waay